madaxa qaramada midoobay ee dalka Kenya Ambassador Zahla ayaa xafiiskeeda ku qaabishay danjiraha dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamal Maxamed Xasan oo uu weheliyo qunsulka safaaradda Ali Maxamed Sheekh Ali Bagadi waxaana uu safiirka Soomaaliya ku wareejiyay wakiilka qaramada midoobay ee dalka Kenya waraaqadiisa aqoonsiga ee cadeynaya inuu yahay safiirka dawladda Soomaaliya oo wakiilka Kenya iyadoo ka gudoontay si rasmi ah oo aqoonsatay danjira Jamal Maxamed Xasan. safiirka ayaa saxiixay buugga danjirayaasha dawladaha caalamka u fadhiya Kenya ee xafiiska qaramada midoobay. intaas kadibna waxaa safiirka iyo qunsulkaba ay kulan la qaateen Mrs Zahla wakiilka qaramada midoobay ee dalka Kenya waxayna ka wada hadleen sidii loo balaarin lahaa wada shaqeynta ka dhaxaysa safaaradda Soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobay ee Kenya. danjira Jamal Maxamed Xasan safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ayaa Ambassador Zahla uga warbixiyay xaaladii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya kulanka markii uu soo idlaaday kadibna mudane Ali Maxamed Sheekh Ali Bagadi qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen safiirka Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay ee dalka Kenya. maanta oo taariikhdu ay tahay 16 bisha September 2015 waxaa laga qabtay warqadihiisii wakiilnimo safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalkan Kenya Jamal Maxamed Xasan Ambassador Jamal Maxamed Xasan warqadihiisii wakiilnimo ee UNEP and UNAFLEX Soomaaliya waxay ka wada hadleen sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen wada shaqeyn joogto ay u yeelan lahaayeen waxyaalaha ay rabaan inay Soomaaliya ka qabtaan ee safiirka kala tashan doonaan. safiirkana waxa uu ka codsaday wax waliba Soomaaliya ka qabanayaan inay u sheegaan sababtoo ah cid wax loo qabanay waa Soomaaliya waxa dalka laga rabo in laga qabtana cidda gudbinaysa waa Soomaaliya. marka safiirku waxa uu ka codsaday wax waliba ay rabaan inay qabtaan inay ka wada hadlaan inay ka wada shaqeeyaan. Cumar Cabdi Xasan Cumar Caaqil telefishinka qaranka Soomaaliyeed Nairobi.